Asalaamu calaykum daawadayaal soo dhawaada xalayto video aan soo geliy waxaan umaleynaa in xoogaa lagu yaro wareeray group 5ka arrintiisii ayaan rabaa inaan ka hadlo. Group 5ka wuxuu soo hoos galaa qaxootiga, arrin qaxooti ayay ahayd, waxaana sameysay State Department-ga which is wasaaradda arrimaha dibadda. Donald Trump executive order-kan ayuu xalay saxiixay, in arki kartaan in kale ma ujeedo. Waxaa la dhahaa realigning the United States realigning the United States refugee admission program. Waa soo gelidda qaxootiga basically programka ahaa waaye. Xalay ayuu saxiixay. Taas macnaheedu muxuu ka dhigan yahay? Macnaheedu taas wuxuu ka dhigan yahay haddii qaxooti ahayd waa la joojinayaa wixii laga bilaabo January 27 2025ka. Group 5ka wuxuu ku hoos jiraa qaxootiga. Marka group 5 welcome cork saak waxay soo direen email leeyihiin in la sii wadi doono muxuu ahayto applicationadii hore loo xareeyay in kale ma kala ogin. That's waxa waa sheekadaas waa afreer magaaleyn waaye, sababtoo ah haddii borderkii uu madaxweynaha uu xiray ma rabaan inay dhahaan waxaan toosaa loo diiday, sababtoo ah ayagana ma lahan awoodeeda. madaxweynaha le madaxweynihiina qaxootigii dhan ayuu xiray. maadaama qaxootigii dhan la xiray muddo 9 maalmood ah kabacdina wasaaradda arrimaha dibadda iyo homeland security-ga ay ka wada hadli doonaan wax waqti dhow soo bixi doona. ilama eka aniga professional opinion-kayga sida ila tahay intii muddo ah ma soo socon doonto. marka arrinta ay leeyihiin welcome cork in la sii wadi dooniyo in kale ma ogin. That's waxay noqonaysaa wax aad u adag ayay noqonaysaa, sababtoo ah dadkii qaxootiga ahaa uu joogay Afghanistan oo Mareykanka weji gabaxa weyn uu kasoo gaaray ayaa falaadyadoodii shalay laga kansalay. marka arrinta group 5ka tani ka hoos jirtaa. qofkii raba in uu arko waa fiirin kartaan website. waxay ku jirtaa dowladda, waxay ku jirtaa online-ka, waxay ku jirtaa White House-ka. executive order-radiisa ayay ku jirtaa 10 ayuu kasoo saaray immigration-ka shalay. caawa ayaan live soo geli doonaa haddii alla idmo aan more sharaxi doona. laakiin arrinta group 5ka way istaagtay laga bilaabo January 27 2025ka. emailkan ay leeyihiin ma ogin waxay noqon doontaan. It's just aniga wax sida ila tahay waa afreer magaaleyn, sababtoo haddii qaxootiga la joojiyay waddo kaloo ay mari karaan oo ay dadku keeni karaan ma jirto ilaa waddadaas qaxootiga la furo. albaabka weyn haddii la xiro daaqadii cidna kama soo geli karto kind of thing waa ay sheekada. marka khayr idin rajeynaa. asalaamu calaykum.